kusoo dhawaada barnaamijkeena ciyaaraha maanta waxaan kusoo qaadan doonaa wararka suuqa kala iibsiga kulamadii xalay ilaa iyo shalay la ciyaaray iyo kuwa caawa la ciyaari doona ayaan barnaamijkeena kusoo qaadan doonaa haddaan u guda galnaa barnaamijkeena waxaa shalay ciyaartay kooxda Arsenal iyadoo 3-1 ku badisay sidoo kale kooxda Fulham iyo kooxda lagu magacaabo Brentford ayaa shalay wada ciyaaray iyadoo 3-2 guul ku gaartay kooxda Fulham kooxda Leicester City iyo kooxda lagu magacaabo Southampton ayaa shalay wada ciyaaray iyadoo 2-1 guusha ku gaartay kooxda Southampton iyadoo caawa ay ciyaari doonto kooxda lagu magacaabo West Ham iyo kooxda lagu magacaabo Brighton sidoo kale kooxda Chelsea iyo kooxda Leeds United ayaa ciyaari doonto kooxda Man City iyo kooxda lagu magacaabo Norway City ayaa caawa ciyaari doona ayadoo kulamadaas caawa ay soo gali doonaan kulanka Man City ayaa soo gali doona 12 iyo bar maqrimo halka kooxda Chelsea kulankeeda iyo kooxda West Ham uu soo gali doona 4 galabnimo maanta sidoo kale kooxda Real Madrid ayaa xalay la ciyaartay kooxda Sevilla iyadoo 4-1 ugu badisay Liigii hore ee kooxda Manchester United ee lagu magacaabo Wayne Rooney ayaa weerar ku qaaday xiddiga Cristiano Ronaldo asagoo sheegay haddii uu lahaa macalinka kooxda Manchester United inuu kursiga keedka gelin lahaa kulanka Manchester United iyo kooxda Liverpool ee wada ciyaari doonaan maalinta bari ah macalinka kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa u soo yeeray war farxad leh iyadoo loo sheegay kulanka bari ee Manchester United inuu ciyaari doono kabtanka kooxdaasi ee lagu magacaabo Henderson ayadoo Liverpool ay dhaawacyo uga maqan yihiin xiddiga dhowr ah haddaan u guda galno wararka suuqa kala iibsiga kooxda Chelsea ayaa la sheegayaa inay doonayso inay sii haysato xiddigeeda lagu magacaabo Pulisic oo doonaysa kooxda Manchester United inay soo qaadato kooxda lagu magacaabo Watford ayaa heshiis la gaartay xiddiga lagu magacaabo Ismail Sarr kooxda Manchester United oo qaadatay xiddiga lagu magacaabo Casemiro ayaa haatan doonaysa inay suuqa kala iibsiga intoosan xarimin qaadato xiddiga Antonio lagu magacaabo iyo xiddiga De Jong ee ka tirsan kooxda Barcelona fadlan hadday tahay markii kugu horeysay aad soo booqato YouTube-keena xulka ciyaaraha dunida fadlan subscribe inoo saar kambalada kala furo si ay kugu soo dhacaan wararka ciyaaraha aan soo gelino maalin walba